هلاقول بيه هرتا ديمو أفباهي قول اللولية إفكار كاغا باهلاي وحيا واغوصيا قول اللوليو إفكار كاغا باهلاي وحيا واغوصيا ولا ذبو ري اللهم نحرستي مع الأبوان محمد حاشي دمع قارية وحاو كون سقال بقول كنتن كي كل شيء مقالة هرقيسة ويدي قمانشات شامع حسين وحيلada شيء والله ولا لها ويل يأفر هبلاد لما انتظروا حيكونوا لاين مقالة هرقيسة أبوانك وحي هويدي يأبهي كلا تجين إسقو أن ولي قاشان قادين وحنا كرنين كيسا انتي بنيد لو ريكتي أو كفالة قادي الددي أبوانكو وحاو وحبرشدي دوكسي هوسر دحاء يسرع وكوقاتي مقالة هرقيسة يا شيخ مددي u dhaxaysay 1960 ilaa 1970 kadib waxa uu abwaanku galay kulliyadii la foolay sanadkii 1974 halkaas oo uu ka qaatay shahaadada loo yaqaan BSc isla waqtiyadaas abwaanka isagoo dhalinyaro ah wuxuu bilaabay curinta maasooyinka iyo hal abuurnimada waxa uu abwaanku dhalay 4 hablood oo laba bahood kala oo la kala yiraahdo Hodan Maxamed Xaashi iyo Hoodo Maxamed Xaashi oo ay dhashay Sahra Maxamed Xuseen Naaleeye oo ahayd xaaska weyn iyo waliba hiddo iyo hibo oo uu dhashay xaaskiisa Muuna Qowrax oo iyadu uu guursaday sanadkii 2004 abwaanku isagoo ilaa waqtigan uu geeriyoon doono ku dhex jira badweynta curinta maasooyinka iyo suugaanta kala duwan ayaa waxa uu sameeyay riwaayado badan oo ay kamid ahaayeen riwaayada dadka badankooda aad ka wada hadlayaan ee aqoon iyo afkar oo ay wada sameeyeen saaxiibkii Hadraawi kuwaasoo jilayaashii riwaayadana ay kamid ahaayeen Maxamed Mooge iyo Shankaroon Allahu naxariistay macallin abwaan Maxamed Xaashi Dhamca Gaariye waxa uu ka qayb galay oo waliba ahaa shamacyadii ugu iftiinka badnaa maasooyinkii taxanaha ee Siinleyda taasoo dalka ka curatay sanadkii 1973 bilowgii Siinleyda waxa iska lahaa abwaan Hadraawi iyo abwaan Cabdiqays oo labaduba hadda nool Allahu naxariistay macallin abwaan Maxamed Xaashi Dhamca Gaariye waxa uu kamid ahaa guddigii qoraalka afka Soomaaliga sanadkii 1976 waxa uu macallin ka noqday dhowr dugsi oo sare sanadkii 1977 ayaa abwaanka loo bedelay kulliyadii la foole oo uu ka dhigi jiray suugaanta iyadoo muddo yar kadibna loo magacaabay gudoomiyaha waaxda suugaanta Soomaaliyeed 1980 waxa uu abwaanku ku wareegay akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee Muqdisho taxanihiisii halku dhiga noqday ee abwaan Gaariye waxa kamid ahaa qasab kuma balweyn karo walay qaaf ujeedo leh qiimahayga kuma rido magaca waa qaashade walay qaduma dhaafsado ninkii beesha qiima qar haduu ku soo damo walay ciida kama qaado sidoo kale heesihii ugu magaca iyo quruxda dheera waxa kamid ah Tanaad oo uu kaga hadlayay qorista afka Soomaaliga 1979 wuxuu abwaanku curiyay riwaayad aan la jilin oo aan ifka iman oo la oran jiray eed hooyo laga galay Allahu naxariistay macallin abwaan Maxamed Xaashi Dhamca Gaariye waxa uu 1982 ku biiray ururkii SNM taasoo runtii maal fiican ka gaadhay halgankii SNM wuxuu lahaa abwaanku diiwaan uu ku ururiyay maasooyinkiisa oo aan wali la daabicin abwaanku waxa mid ku gabiyi kara afka Carabiga Ingiriisiga iyadoo uu 1996 ka qayb galay tartan suugaaneed afka Carabiga ah oo lagu qabtay wadanka Ivory Coast halkaas oo uu ku guuleystay kaalinta koobaad waxa kale oo abwaanku ka qayb galay dhowr tartan oo lagu tartamayay suugaanta Soomaalida oo dhammaantood uu ku guuleystay kaalmaha koobaad Allahu naxariistay abwaan Gaariye ayaa si weyn loogu xasuustaa gabayadii iyo maasooyinkii dhaxalgalka ahaa ee sida mugga leh uga qayb qaatay nabadeyntii beelaha iyo dibadhiskii qaranka Soomaaliland isagoo runtii hormuud u ahaa odayaashii isu keenay dhammaan beelaha Soomaaliland ee heshiiska waara ka dhexdhaliyay walaalahooda colaadu ka dhaxaysay waxa kaloo jirta in sanadkii 2007 uu Gaariye qaaday koobka aftahanimada kaasoo lagu qabtay dalka Sweden isagoo noqday aabaha fanka Soomaaliyeed sidoo kale abwaanku waxa uu miisaan ku lahaa bahda waxbarashada isagoo muddo dheer macallin soo ahaa ayaa waxa uu cashar ka bixin jiray jaamacadaha Hargeysa iyo Camuud taasoo waqtigan haatan uu macallinka ahaa jaamacadda Hargeysa University intaanu dhiman ka hor buugaagta laga qoray Maxamed Xaashi Dhamca Gaariye waxa kamid ah buugga la yiraahdo Hagar Laawe mid kamid ah gabayada suugaantiisa ugu caansan maasada waxa la yiraahdaa gurbad baa la yiraahdaa gumba laga unkaa duqba geel loo tubaa gawba ka qaadurban waxa geel la kacaa geelka tahay ere la daa gefkana bashar baad u tee hadaad ka garowda qalad gobbay caadadeeda tahay
abwaanku ugu dambeyn waxa uu ku geeriyooday dalka Norway sanadkii 2012 bishii Oktoobar. taariikhda abwaan gaariye oo kooban intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka. waxa idin la socodsiinaya anigoo Ridwaana. inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadgelyo.